Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaamay saaxiibayaal meel kasta iyo barnaamijkeeni scholarship-yada mise deeqaha waxbarasho ee caalamka kuwaasoo ay ka faa'iideysan karaan. Waa barnaamijkeeni labaad. Shalay ayaa ahayd barnaamijkeeni koowaad ee scholarship-ka waxbarasho oo lagaga soo xiray 20-ka kaas oo ku saabsanaa master's degree. Laakiin maanta wuu ka duwan yahay kan aan idin wado waa master waa PhD. Qof kasta marka waxbarasho doonaya wuu ka faa'iideysan karaa programkani. Waa deeq waxbarasho oo dowladda Turkiga ugu deeqday dunida oo dhan. Qof kasta ayuu u furan yahay. Waddan kasta wuu soo apply gareyn karaa. Marka aan gudagalno faahfaahinta scholarship-ka. Waa 2025 waad ujeedin. Okay, programka waa undergraduate oo degree ah, masterkii iyo PhD-gii. Marka application wuu furan yahay. Dhammaan waxaa u furan marka anaga waxaa noqoseeyo okay Africa ayaa noqoseysa halkani. Saad ujeedin waxaa lasoo dejiyay programka 28 bishii December ee dhaaftay. Hadii 8 cisho ayuu programka uu socdaa marka Africa. Anaga waa Africa ayaa noqoseysa marka caalamka oo dhan wuu ku jirta laakiin Africa haday ku jirto marka Soomaalida hadda Soomaalina way noqoseysa ay ka dhigan tahay. Hoos aan u daadegno. Turkish scholarship 2025 hadaba waa fully funded. Muhiimaddu waa fully funded. Inuu yahay program si dhammaystiran macnaha qarashkiisa loo bixinayo inuu yahay waa undergraduate master iyo PhD inuu yahay. Hoos hadaan u daadegno muhiimaddu waa criteria iyo waxyaabaha la iska rabo. Marka scholarship-ka muhiimadiisu waa detailkiis marka aan u guda galno waa scholarship providers waa Turkey scholarship way dowladda ayaa scholarship-ka ugu deeqday caalamka. Marka waddanka hoosta gareynayo mase waddanka wax lagu baranayo waa Turkey weeye. Levelka waxbarashana waa degree waa masterkii iyo waxyaabaha aan kasoo sheekeynay weeye PhD-ga. Eligibility daa la dhaho waa dhammaan ardayda dunida oo dhan wey all countries. Marka hadiiba all countries meesha ku jirto marka wadamada oo idil weeye anaguna ku jirnaa marka waa inoo furan tahay ka dhigan tahay. Program duration-ka waa degree-ga waa 4 sano ilaa 6 sano weeye. Waxay ku xiran tahay fieldiga aad dooranayso. Okay, field haduu yahay caafimaad mise haduu yahay engineering okay hogaa yar social haduu yahay marka sanadka waa sida caadiga ah naqaani weeye. Master's degree waa 2 sano. Okay, PhD qofka diyaarinayo waa 4 sano iyaduna. Dhammaan marka dadka kusoo guuleysto scholarship-ka waa in uu bartaa 1 sano 1 year or language ah oo Turkish language waa inuu bartaa 1 year Turkish language course waa inuu qaataa waa must weeye waa compulsory mise waa waajib weeye inuu dhammaysto 1 sano. Okay, eligibility-ga marka waa dhammaan citizen-ka okay adduunka oo dhan wadamada caalamka muwaadiniintooda dhan ayuu u furan yahay. Okay, marka academic performance requirement-ga okay minimum ugu yaraan qofka degree-ga soo apply gareynayo okay 70% waa inuu wada grade-kiisa NLS ahaan. Okay, qofka master's degree-ga iyo PhD-gana 75 ugu yaraan inuu wato. Marka ma aqaan waddankay ku xiran tahay B miya B plus B normal taasaan u malaynayaa oo hadii waddankaaga jagareyn karta waxaad ku jagareyn kartaa dana scale-ka oo Turkiga. Marka scale-ka Turkiga waa inaad baarta marka adiga aad raadisa okay 70% ujeedka waddankaaga amba Soomaaliya ha noqoto mise Kenya mise Ethiopia mise Djibouti waddankaad wax ku baranayso scale-kiisa ayaa waxaad isku jagareynaysaa scale-ka waddanka Turkiga then halkaas ayaad geli kartaa insha Allah. Marka dadka baranaya marka health science-ka iyo medicine information waxaas information dhamaantood waxa laga rabaa ugu yaraan inuu LLS ahaan qofku wato minimum 90. Okay, marka top scorer weeye ardaydan halkan waxay ka dhigan tahay ugu yaraan okay 70 75 90 waxay ka dhigan tahay waa high score qofku inuu wato. Age-ka mase da'da qofka degree-ga ah waa inuu ka hooseeya da'da 21 sano. Okay, markuu soo apply gareynayo barnaamijka ma sanadka aan ku jirno da'diisa 21 meelahaas. Master degree markaa soo apply gareynayso da'daada waa inay 30 ka hooseysa 28 29 meelahaas. PhD qofka PhD soo apply gareynayo isaguna 35 waa inuu ka hooseeya. Qofka research-ka sameynaya program research-ka sameynaya doctorate-ka mise sameynaya isaguna sidoo kale waa inuu sheegay 45 meelahaas. Okay, research-ka dadka sameynaya. Okay, current students in Turkey are ineligible. Qofka marka joogo Turkiga degan oo kale laakiin Soomaali yahay laakiin Turkiga degan okay looma ogola inuu soo apply gareeyo programkani. Okay, marka Turkiga qofka degan okay ma soo apply gareyn karo. Requirement documentiga laga rabo inaad marka soo apply gareynayso programka aad soo dirto waxaa kamid ah passport waqtigaas shaqeynayo inaad soo dirto. Okay,
sidoo kale nationality score hadduu jiro examyada oo kale hadduu jiro iyaguna waa soo waad soo diri kartaa haddii waqtigaas wax baranayso waa meesheed laakiin diploma or graduate certificate iyaduna waa laga rabaa qofku inuu macnaha uu kusoo daro transcriptiga ayaa la iska rabaa hadduu jiro international exam hadduu jiran sidoo kale iyaguna waad kusoo diri kartaa language haddii luqad macnaha shahaado luqadeed aad haysato isaguna oo turkey mise luqad kale haddaad hayso waa kusoo dari kartaa researchka isaguna proposal and writing sample baa laga rabaa sample inuu soo qoro okay markuu soo apply gareyna applicationkiisa inuu soo raaciyo ayaa laga rabaa هذا تركيا scholarship تركيا okay lacagta macnaha qofku bishii oo kale uu heli karo pocket money wax loo yaqaano qofka digriga baranayo oo kale 700 oo okay lacagtaas wadankaas loo yaqaano Turkey lira ayuu qaadanaya bishii okay master qofku baranayana isaguna 950 okay wadan lacagta Turkiga okay qofka PhD gana uu heli doona 1400 oo lacagta wadankaas research ka sameynaya iyaguna 3000 oo liirada ah wadankaas ayuu heli doonaa marka liirada wadankaas exactly yani inta lagu sarfo ma aqaano laakiin waa khadka ka jeegareyn kartaa dollar ahaan mise Soomaali ahaan lacagtaas intay noqonayso marka waxyaabaha kale oo dhan waa caafimaadkii tuushinkii cuntadii iyo jiefkii ticketkii luqadda la baranayo waxaas oo dhan free weeye intaas oo dhan faa'iido ahaan ayaad u heli doontaa insha allah haddii aad heli فيليات هذا هدي عن جايجرينو okay medicine كي باكو جرو engineering كي باكو جرو business كي باكو جرو social science كي environmental science كي باكو جرو art كي okay أنا مو sidoo kale ardayda haddaba halkani waa muhiim weeye waa 5,000 oo arday weeye number of the scholarship waa 5,000 oo arday okay taariikhda ugu dambeysa la soo apply gareyn karaan waa 20 February ee bisha soo socota weeye marka waqti baad haysataa waad kusoo apply gareyn karto programkani insha allah haddii aad heli waxaan soo dhigi doonaa insha allah linkiga aad ka geli karto pageka rasmiga aad ka geli karto ayaan kusoo dhigi then apply garey okay barnaamijyada soo socdo insha allah haddii aad waxay kusoo gudbin doonaa scholarship lamid ah scholarshipyada shalay iyo maanta aan soo geliyey pageka face youtube-ka qarniga 21aad open bracket journalka cilmi kaab ayaad ka heli kartaa scholarship kasta oo Asia, America, Europe iyo Africa oo qof kasta Soomaali ah uu apply gareyn karo insha Allah waa kula soo wadaagi doona haddii aad heli hadda waxaad igu taageertaa subscribe-ka channelka insha Allah haddii aad heli aad baad u mahadsantahay